bahalkan wuxuu dilaa cid kasta oo shanqar samaysa. digtooni samaynta cod keliya ayaa soo jiidan kara masiibo iyo geeri degdeg ah. laakiin markan bahalkii wuxuu ku dhacay dabin. waxaa soo baxday in markii bini'aadanku qarka u saarnaa in ay dabar go'aan bahalo shisheeye aliens awgood 2 nin oo u dhashay Hindiya ayaa maskaxdooda tuujiyey ugu dambayntiina helay qaab farsamaysan oo ay ku qabtaan. waxay geeyeen container weel weyn meel bannaan ah iyagoo ku dhuuntay labada dhinac. waxa keliya ee laga rabay waxay ahayd inay riixaan remoteka gacanta lagu sameeyey si ay u shidaan sameecadda saaran qafiska dushiisa taas oo dhawaaqeedu isla markiiba soo jiidanayo bahalka. markii uu bahalku gudaha u galay mar kale ayay batoonka riixeen albaabkiina wuu soo dhacay isagoo xayiray bahalkii sida askari la jebiyey. hase yeeshee makhluuqa wuxuu ahaa mid aad u xoog badan ilbiriqsi gudihiisana wuxuu dhowr meelood ka yamiyey konteenarka. markii uu midkood arkay tan si degdeg ah ayuu u qaatay qorigiisii gacanta lagu sameeyey wuxuuna ku dhuftay falaar iftiin ah taas oo bahalkii halkaas ku dishay. guushii tijaabada koowaad kadib labadii nin ayaa isjaleecay waxayna garwaaqsadeen inay u baahan yihiin inay si degdeg ah u howlgalaan si ay gebi ahaanba u tirtiraan makhluuqaadkan soo duulay. markii ay riixeen remoteka markii labaad bahal kale ayaa u soo dhowaaday codka sidii la filayeyna wuxuu ku xirmay qafiska waxaana si fudud loogu diray aakhiro iyadoo la tooganayo. kadib waxaa yimid kii saddexaad kii afaraad iyo iyadoo bahalo badan la dilay xiisaddii u dhexaysay labada nin way yaraatay waxayna bilaabeen inay u dhaqmaan si kalsooni leh. xitaa waxay bilaabeen inay doorarka kala beddeshaan si mid walba u dareemo xiisaha dilka bahalaha. hadda waxa keliya ee loo baahnaa waxay ahayd in la riixo remoteka bahaladuna waxay ku dhacayeen dabinka waxay ahayd hanaan aad u fudud. 3 maalmood kadib meydadka bahalaha waxay sameeyeen buur yar xawaarahan. haddii lagu socdana dhulku dhowaan wuu badbaadi lahaa. qado degdeg ah kadib shaqadii ayay dib ugu noqdeen. hase yeeshee markii bahal la soo jiiday konteenarka mid ka mid ah remotekooda ayaa shaqayn waayey wuxuu iloobay inuu beddelo bateriga. dhacdadan lama filaanka ah waxay labadooda gelisay cabsi markii bahalku waayey bartilmaameedkiisii wuxuu bilaabay inuu ka soo baxo qafiska. isagoo quusan midkood ayaa si degdeg ah u furay remoteka si uu bateriga u beddelo laakiin dhawaaq yar oo xiritaanka daboolka ah ayaa bahalku maqlay kaas oo u soo dhaqaaqay dhankiisa. xitaa haddii uu hagaajiyey ma shaqaynaynin. wax yar uun ka hor inta aan la cunin waxay dareemeen halista dhabta ah ee xaaladda. dhibaatadaas kadib waxay go'aansadeen inaysan qaadan wax fursad ah oo ay wax walba si taxadar leh u hubiyaan ka hor inta aysan dib u shidin sameecadda. laakiin markan si kasta oo ay u sugeen wax bahal ah ma uusan soo muuqan. waxay u muuqatay in shisheeyuhu ay la qabsadeen codka. waxay isku dayeen inay u beddelaan muusiga bobka laakiin weli waxba ma dhicin. waxay u ekayd in bahalihii oo dhan la dabargooyey. labadii nin ayaa bilaabay inay dabaaldegaan laakiin si lama filaan ah dhulka ayaa bilaabay inuu gariiro. waxay eegeen kor naxdintooda darteedna waxay garwaaqsadeen in bahalo aan tiro lahayn ay ka soo baxayeen